إنا لله وإنا إليه راجعون. ودعدو aad u xanuun badan oo maanta ka dhacday magaalada Muqdisho. Dhacdadaas oo ah wiil Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan isla markaana ahaa arday ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho sabab runtii qof walba uusan rumaysan karin. Cabdiraxmaan oo ahaa arday mararka qaarna kubadda la ciyaara asxaabtiisa ayaa saakay wax ay wada ciyaarayeen asxaab ka mid ah saaxiibadiisa isla markaana waxa uu gool u dhaliyay kooxdii uu la jiray. hase ahaatee goolka uu u dhaliyay waxaa ka xumaaday mid ka mid ah kuwii ka soo horjeeday isla markaasna waxa uu u wacday walaalkiis oo ahaa dabley ama ciidan ka tirsan dowladda Soomaaliya. waxaana meeshaas ka dhalatay in walaalkiis uu yimaado isla markaana uu rasaas ku furo Cabdiraxmaanna uu sidaas ku geeriyoodo. runtii ma aha dhacdadii ugu xumeed ee ka dhacday magaalada Muqdisho, laakiin waa mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu xumaa ee ka dhaca magaalada Muqdisho. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun.